qof gaajaysan gob ma ah gun wey wixii la rabo iyo dantii la raba laga samaystaa oo maxaanu uu kalifay inaanu saas u gubowno waxaad cid tira ka sugtay ma ku dhargin karaane maya ma ku dhargin karo bariya aadan ma ku dhargi karaysaa weligaa kuma dhargaysa wax kasta baa lagu sii inta ugu xoolo badan adduunka hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqi mayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsatay wax ku deeqi kara intaasaa jira haddaynaan annagu inta marada dhexda ku xiranno adkaysanno aynaan tabcinna weligaan ka bixi mayno gun iyo gacan horsi baan u dhammaanaynaa ma gun iyo gacan horsi baan ku jiri karnaa insaanku sharaf buu leeyahay karaamuu leeyahay oo maanu inta ilaaheen cuskanno iyo nafteenna maynu qof yaanba inta qaato waa ka halkaa dow ka baxaye maanu wax ku abuurno bal qof walba gurigiisa muu ku abuuro geed lima inuu bixiyeen kala arkay oo geed babaaya ku abuuro oo geed cambaa ku abuuro waa baxaya qof gurigiisa uusan baxayn ma jirto hortiisa waxaan kaga bixi karnaa inaanu u jeedsano tacab kii badgalaa ha galo kii biri galaa beer ha ka doonto kii xoola haysta ha tabcado ha xanaanaysto kii wax kaleeto oo qiimo leh qabanaya ha qabto dadkeenna inaan jahayna doonaya innagaa rabaa inaan jahayno haddana waa markaan leeyahay dal taajirah iyo dad faqiirah isku dul nool dadku faqiir weeye run weeye laakiin dalku taajir weeye ilaahay wax walba waa dhigay bad buu dhigay beer buu dhigay xooluu ka badiyey hawo fiican buu siiyey kulligeen shaarar baynu qabna 12 bilo shaararkaasaan qabayna adduunka meelo badan kama dhacdo taas dhowr nooc oo labis waa in la isku bedelaa oo dhaxanta mid la isaga celiyo oo mid qorraxda la isaga celiyo oo mid dabaysh iyo balaayo waaweyn la isaga celiyo annaga aad baa ilaahay noogu roona laakiin waxaad moodaa ama asal aqoon darro haynoo geyso ama isticmaarba hayna aaminsiiyo inaynaan waxba qabsana iyaga barino hayna aaminsiiyo haddana waxaad moodaa inaynu fiqiirnimadii kula nool lahay sababihii la imaanhayeyna inaynaan dareemaynin sidaynu isaga caabii lahayn waxaad moodaa habkii ama tabtii aynu kaga bixi lahayn dhibaatada noocyada kala gedisan leh oo ama bini aadamku uu dalkeenna u geysanay dadkeenna ama dabeecadduba haddaadan la dagaalamin way kula dagaalamaysaa awooddii alla ku siiyey aadan uga hortegin oo aadan wax ugu qabsanin inay ku hayso shacbigeenna dhibaato badan haddana waa dalkaa taajirka ah saanu sheegahayo dadkeennuse ma garan tajaaradaas ilaahay siiyey oo dadnimo oo dad fiican wey dadkeennu dad xun maaha iyo qaniimadaas ilaahay dalkooda ugu beeray nooc kastaba ha noqotay inay ka faa'iidaysan layihin faa'iida darradaasna ay ka imaanayso dariiqad aan habboonayn u fakerta ama ku shaqaysa weligoodna uu isticmaar lug ku leeyahay ajnabi uslug ku leeyahay intay iyagu taladooda iyo tabartooda iyo dantooda iyo dalkooda iyo naftooda iyo ilaahad inta aaminaan ay wax qabsan lahaayeen waxaad moodaa aad inay ugu janjeeraan cid kale inay wax ka sugaanin waxaad cid tira ka sugtay ma ku dhargin karaane maya ma ku dhargin karo bariya aadan ma ku dhargi karaysaa weligaa kuma dhargaysa wax kasta baa lagu sii inta ugu xoolo badan adduunka hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqi mayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsatay wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni aad naftaada iyo dalkaaga iyo diintaada aad ku qabto wax kaloo ku deeqi karaa ma jiraan soomaaliyay dantaada u jeeso iska daa indhahaad u taagayso dalal kaleeto iyo wixii ka imaanaya warkacay aynu tabcanne beereenna aan tabcanno oo baddeenna kala soo baxna wax ku yaal oo xooleenna aan xanaanaysanno aan ku noolaanno wixii wax ina dheer aynu kaalmaysanno asaan cadow ku ahayn dalkeenna iyo dadkeenna